subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan, qaraabo iyo axsaabba kusoo dhawaada Kawawa Food Channel oo raba inuu idin diyaariyo afurka maanta marka la afuro kadib disaadkii la cuni lahaa. Okay, maxay tahay marka disaadkaas maxaanse ka sameyn doonaa ilaah duraali ka noqdo. waxaan maleynaa kaamirado okay waaye wala arkaya. waxaa halkan diyaar noogu ah 4 xabo oo ah kiwi. waxaa halkan diyaar noogu ah xoogaa adiga depend familka cadadiisa intay tahay oo yope ah amba strawberry qofba sidoo u yaqaano. halkan waxaa diyaar noogu ah rose water. halkan waxaa diyaar noogu ah sokor. halkan waxaa diyaar noogu ah ilaah duraali ka noqdo corn flour. halkan waxaa diyaar noogu ah almond ilaah duraali ka noqdo. waxaa kaloo diyaar noo ah pistachio oo aan rabno hadhowti inaan kor decoration aan ogaga dhigano ilaah duraali ka noqdo. pistachio iyo almondska waa decorkii aan kor ka saari lahayn markaan hawsheena dhamaysano. waxaa kaloo halkan diyaar noogu ah caanaha hadaad rabtid caanaha soodkaad ka samayn kartaa oo aaga bluega ah. haddaad rabtidna midkaanay talaydka caaga cagaaran waa ay fahmi kartiin aan umaleynayaa. okay, marka hadda fruitkeeni aan jarjaraneena intaynan dabka aynan shidanin ilaah hadduu raalli ka noqdo. betsaad ka dhigaysaa cadcad muuqanaya. waxaana rajeynayaa in aad jeclaan doontiin. aniga waxaan jeclahay disaydka subaxdii hore inaan iska sameeyo oo frijeerka aan iska sii dhigo si uu qabow fiican uu u noqdo oo qofka markuu cunaba qalbigiisu qabow u ka dareemayo uu ku raaxaysanayo disaadkaas. insha allah waxaan idin soo gelin doonaa noocyo kala duwan oo ah disaadkaas iyo soobka amba shurbada sidaad u taqaanaa oo qudaar badan aan ka sameynayo kala nooca. aad ayay u fiican tahay soobka markaad qudaartiisa aad badsatid. karoodkeeni waa jarjaranay. karoodkaan dhihine kiwiya hadda jarjaraneena insha allah. strawberry waan jarjaranay. rabadaanka aniga waxaan jeclahay xisaabta inaan idin sheego. waxaan jeclahay qudaarta iyo fruitka inaan badsano. intaan badin lahaa waxyaabo la shiilaayo iyo ya ka caafimaad maahan. qofkiina wuu ku daalaa jikadii wax la dubaayay iyo la shiilaayo iyo adoo fruitkaaga jarjaratidoo qudaar fiicanna cuntada ku badsatidaa kaaga fiicanba. waqtina badan markaa qaadanayso mana daalaysid maanta oo dhan jika ma ku jiraysid. rabadaanka maba laysku waalo jikada kanaan sameynaa wax fiican ma ahan. haddaad fruitkaaga jarjaratid soob qudaarka buuxda aad samaysatid yaa saxankaaga cashada intaasi waxa la dubaay hal shay leh ahaado. wallahi sababta cid cunaysana male. wixii frijeer la gelinaysaa adigina waa isnoojisay. laga yaabo markaa wixii badisidna wax vitamins korkaaga uu ka helaayo
inaadan basameyninba wax calool buuxinaya ilaa aad samaysay. aqyaarta qudaar fruitkeeni waa jarjaranay. marka hadda waxaan sameynaynaa in aan caanihii iyo aan isku diyaarino. halkan waxaa ii saaran waa digsi aan waxba ku jirin. dabka ma shidaysid. waxaad ku shubaysaa tallaabada koowaad aad qaadaysid 100 milliliter oo caano ah. okay, waxaan ku dareynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo corn flour oo ah 6 tablespoon. waa 6 tablespoon corn flour iyo 6 tablespoon oo sokor ah. tablespoon markaan idin leeyahay waa qaadadaas qiyaasteeda. haddaadan haysan waa wax fudud. qaadada bariiska aad ku cuntiin ayay u dhigantaa. ogaada dabkana ma shidno qaraabo. kow, labo, saddex, afar, shan, waa 6. waa sida soconaya umaleynaya. sokortana waa sidoo kale iyadana 6. aqyaarta dabka ma shidno. waa inaad ilo socotiin. dabka ma shidno. sokortana waxaan ku shubeynaa 6 tablespoon. kow, labo, saddex, afar, shan, 6. okay, markay intaas tahay intaas ayaan isku walaaqayaa. dabkana ma shidno. waad ila socotiinaan u maleynayaa si aan u furfuro. waa inaan horta isku qasaa. waadna ogtihiin corn flourka markaad meel ku shubtid waa adkaanayaa. ilaan waa kii xalwada lagu sameyn jiray. dulqaad ayuu u baahan yahay markaad kala furfuraysid. waa inaan saan dhahaa un hadda markii kan maba ii dhaqaajinooyaba. saa tartiib isku furfuraya markaas. waan qasay si fiican ayaan u qasay. waa kaasaa. waxaa la rabaa kuus dhan inuusan yeelanin. hadda marka dabkeennii ayaan shidanaynaa. markaas ayaan waxaan ku dareynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. dabka markaad shidatid kadib waxaad ku daraysaa ilaa hadduu raalli ka noqdo 900 oo milliliter oo caano ah. 900 milliliter caano ah. okay, boqolkii hore ma hayaa 900 oo hadda kadib ah. hadda kan cabirkiisa waa 500 milliliter kan u weyn. haddana 3 aan ku shubay. waxaan ku shubay insha Allah 4 kaleeto anoo buuxa. 900 ayaa idin dhahay. 500 waa kaasaa. waad arkaysiin aan u maleynayaa. haddana waxaan ku darayaa 400 oo qiyaasteeda halkaas milliliter. waa kaasaa 5 iyo 4 sidaasay 9kii ku tahay. iyo boqolkii hore oon ku qasanay
corn flour ka isla soconaya maleena dabkana hadda ayaan shiday waad ogtihiino dabka hadda ayaan shiday marka hore ma shidaysid tartiib ayaad isaga walaaqanaysaa markaas ilaa uu cream ka noqdo saas ayaan walaaqay waan noo soo dhaweynaa akhyaarta si aad si fiican uga arki kartaan okay tartiib ayaan u walaaqayaa ilaa uu creamy uu noqdo okay hadda marka waxaan ku dareynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo 1 tablespoon oo rose water 1 tablespoon oo rose water 1 tablespoon وانا قاعدة 1 tablespoon وقاعدة عن بريسكو كوعنا قياس تهذا إلى دورالي كالنقطة السجا نادر أمهم كتلوش هذي 1 tablespoon of rose water سوينا خيارته dabkana ma dheereynaysid afar baad ka dhiganaysaa markastana waa inaan walaaqno si uusan hoos kaaga dhigin waxaan kaloo ku dareynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo cabirka hal xariijin afar quarter teaspoon oo ah cardamom cardamonkuna waa inaan ka saarnaa qashinka ilaa hadduu raalli ka noqdo cardamomkana waa inaan ka saarnaa qashinka cabirkana waa idin sheegay waa 8 quarter cardamom waa kaasa that's it waxaan kaloo ku dareynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo vanilla sugar oo iyadana ah 1 tablespoon oo qaadada bariiska aan u dhiganta waa kaasa intaas ayaan isku walaaqeynaa khiyaarta ilaa uu ka noqdo cream oo kale ilaa uu ka noqdo saas ayaan u walaaqeynaa dabkana waa inoo gaabsan yahay oo ma dheera sababtoo ah hoos inuu ku dhiga lama rabo si raaxa leh inuu u karaa la rabaa raaxa leh khiyaaray horta ma ogtiin cuntadii dab gaaban lagu kariyo in ay ka macaan tahay aad iyo aad ay uga macaan tahay laakiin markii cuntada dabka samada loo geeyo digsigiina waa madoobaysay cuntadiiyoon joy sidii la rabay aan u diyaar garoobin oo dejis diyaar u ahaynna waad ka dejisay mana fiicno waxaas dabka waa loo gaabinaa iska raaxaysata bal digsi kaama halaabaayo kaagama dhagaayo stress la-aan inaad jikada ku gashidaa la rabaa stress markaad ku gashid wixii dhan waa kaa halaabayaan hadda wax walba waan ku darnay bas waa ilaa kareem uu ka noqdo in aansaan u daba taagnaano akhyaarta waad u jeediin si fiican ayaan u walaaqay hadda wuxuu yahay waa diyaar markaad rabtid inaad ogeetid inuu diyaar yahayna
qaadadaas ayaa saas ku leedahay waa ujeedaa waa cream oo kale waad ujeediin marka hadda waan ka dejinayaa waa inuu qaboobo dabka uu igu kariyana waa 3 hadda dabkan ka leexinayaa markuu qaboobo ayaan furudka ku shubeynaa ilaaha hadduu raalli ka noqdo I hope inaad jeclaan doontiin Kawawa Food Channel wuxuu diyaar idinkugu yahay in uu idin qarciyo bisha Ramadaan hadba wixii maskaxdiisa ku jirto ee ka soo buuxaysa in uu idin soo bandhigo waad mahadsantihiin dulqaadka iyo supportiga aad isiisiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa adduunka meel kasto aad ka kala joogtaan ku soo dhawaada Kawawa Food Channel hadda waan ka dejinaa dabkii inuu qaboobo ayaan rabaa sababtoo ah soo kulul furudkii lagu shubi karo furudkii waa halaabaya banaanka aan iska dhigeynaa asaga ayaa markuu qaboobo aan furud ku qasno on diyaarinayo ayaan isku soo laaban doonaa insha Allah ta'ala akhyaarta wuu inoo qaboobay waa kana creamkii aan sameynay sidaas ayuu ku soo baxay marka hadda waxaan ku dareynaa furudkeeni inoo jarjarnaa laba qayb ayaan ka dhigaysaa hore kugu sheegay qaybna waa decorkii aan ka dhigaynaa decoration qaybna waan ku qasaneynaa insha Allah waxaan rajaynaa in aad ka heli doontiin insha Allah ta'ala waad la socoteen habkaan u sameeyay kow ilaa dhamaad marka hadda waan isku qasayaa بكيرياشا إن شاء الله نسوي السعنا يا ماما لينا غيرت والله أكي كراتلو ها أوكي sidaas ayaan ugu wada diyaarsanaynaa insha Allah hadduu familka weyn yahay qiyaastii hadda aan idin tusay unbaad laba jibaaraysaa قيارتي سيداس أيو كسو بحي مركا هدا وحان إسلا سارينا إله الدور رالي كان نقضو decoration كي كورا أيان إسلا سارينا مالا أكي كرابتلو كاميرا دا ميدي كفوغي مسوا إدو كدو داهي أوكي هدا مركا decoration كي أيان كوركا سارايا إن شاء الله أو أها قيب أيان كريبتي كيويجي إيو strawberry مركا كوركا كسارينا إن شاء الله mid kastaba xoogaa kiwi iyo xoogaa strawberry insha Allah waxaan u maleynayaa in aad jeclaan doontiin insha Allah waadna la socoteen habkaan u sameeyay kow ilaa iyo dhamaad akhyaarta ku soo dhawaada Kawawa Food Channel oo diyaar idin kula ah bishaan Ramadaan wixii maskaxdiisa ku jirta in uu banaanka soo dhigo insha Allah aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkiina faraha badan iyo supportigiinana mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay kulli muslimiin adduunka meel alla meeshay ka kala joogaan Ramadaan kariim ayaan leeyahay
ku dhameynaa kulli inuu iyo harma rabo okay hadda marka waxaan kor ka saareynaa almond iyo pistachio saan hore idinku sheegayba innaba caadi maaha idin dhahay innaba caadi ma aha hadda frijeerkaan gelinayaa ilaa iyo hadhow saacado badan ayuu haystaa uu ku qaboobi karo insha allahu tacaala waa vitamins maaha wax faad leh waa ifahanteena umaleenaya akhyaarta so hadda marka waxaan kor ka saareynaa pistachio may almond pistachio waa saare waa almondige qiyaarta waa kaasaa saxanka fruitkeena disaadka sidaas ayuu inoogu soo baxay haddaan idiin soo dhaweeyana waa kaasaa sidaas ayuu kusoo baxay waxaan rajaynayaa in aad ka heli doontiin habkaan u diyaariya kow ilaa iyo dhammaadna waad la socoteen kusoo dhawaada kawawa food channel like-ga commentiga subscribe-ka gambaleelkana waa xaggiina sidaas iyo nabadgelyo bye